Cabdirashiid Xasan Cabdinuur wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay magaalada Kismaayo. Kulanka oo inta badan looga hadlayay arrimaha ammaanka inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayay mas'uuliyiintu ku tilmaameen in ururka Al-Shabaab ay inta badan weeraro geystaan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, taasina ay sababtay in laga shiro sidii looga hortagi lahaa weeraradaasi. Mas'uuliyiinta ayaa sidoo kale si adag uga hadlay digniinna u diray maqaaxiyaha cunnooyinka kariya xilliga la sooman yahay iyo dadka masoomayaasha ee ka cunteeya meelahaasi. Markii uu soo dhammaaday kulanka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka laamaha amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim, waxa uuna sheegay waa mahadsantihiin bahda saxaafadda. Halkan waxaan ugu talagalnay inaan ku faahfaahino kulan saaka ay gashay wasaaradda amniga iyo saraakiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka. kulanka oo uu shir gudoominayo wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, halka oo lagu falanqeynayay xaaladaha amniga ee deegaanada Jubbaland maadaama ay nagu soo wajahan tahay bisha Ramadaan ee khayrka badan. wasiirka iyo saraakiisha iyo dhammaan waxaa markaa hoos laga wada xariiqay in ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ay laba laabaan way adkeeyaan xaaladda amniga maadaama bishii khayrka badan lagu jiro. kooxaha cadawga ee khawaarijna mar walba ay isku dayayaan in bisha Ramadaan cibaadada iyo khayrka Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay in ayagana ay cagsigeeda u isticmaalaan dhiigga shacabka Soomaaliyeed ay daadiyaan. qodobka ugu muhiimsan qodobka ayuu ahaa, waxaana laga soo saaray in amar ay tahay xoogna la saaro xaaladda amniga hadduu Ilaahay idmo ciidamadana foojignaan dheeri ay galaan insha Allah bidina karinta ayuu qodobka ahaa. qodobka labaad ciidamada wasiirka iyo saraakiisha dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka ay isla soo qaateen sidoo kale waxay ahayd maadaama Ramadaan ay nagu soo wajahan tahay maqaaxiyaha sida sharci darrada ah uga ganacsanayo waqtiyada Ramadaanka ah waqtiga Ilaahay u xarimtay isku dayay in ay ka lacageystaan ama lacag ay ka qaataan maqaaxiya duurka waqtiyada ay dadka masoomayaasha ay cunto u kariyaan ay ayadana si loola dirin lahaa barnaamijka looga hortagi lahaa ayuu ku wajahnaa. waana islaam fikirta alxamdulillahi rabbil caalamiin. waxaana loogu digayaa qof kasta oo muslimiinta reer Jubbaland ah in laga foojignaado dhibaatada ayada ah maadaama Ilaahay uu ka xaaraantimeeyay in adigana aad ku dhicin wax Ilaahay uu ka xaaraantimeeyay. ciddii lagu soo helo ayada oo maqaaxi shiday Soomaalin dad masoomayaal ahna cunto u karinaysana waxaa la horgeyn doonaa insha Allah bidina karim sharciga ayaana wixii uu u gooyay ayayna heli doontaa hadduu Ilaahay idmo. Mustafa Cabdullaahi Maxamed TV ga dalka Kismaayo.